xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Hirshabelle ayaa kulan isugu yimid magaalada caasimadda ee Muqdisho. Kulankan ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka ee maamulka Hirshabelle ee dhawaan la filayo. Qaar ka mid ah xildhibaanadii ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in doorashada maamulka ay ku dhici doonto waqtigii loogu talagalay doorashada isla markaana aysan soconaynin wax dib u dhac ah sida ay hadalka u dhigeen qaar ka mid ah xildhibaanadii kulanka ka hadlay. xildhibaanada federaalka ay ku matala deegaan doorashadoodu tahay Hirshabelle in ay maanta isku yimaadeen iskana xog wareysteen kala guurka lagu jiro hadda ee ku saabsan arrimaha masiiriga ee gaar ahaan doorashooyinka. Waxaan soo dhaweynayaa warmurtiyeedkii soo baxay. sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan baaq dheer u jeediyo in doorashaduna waqtigeedana ku dhacdo si xor iyo xalaal ah. qof kasta oo muwaadin ah oo reer Hirshabelle uu xaq u leeyahay inuu isu soo sharaxo muxuu ahaayay uu soo sharaxmo qodobka 47 maartay dastuurka kumeel gaarka goboleedka Hirshabelle oo sheegay qodobkiisa 47 in qof walba oo muwaadin ah inuu xaq u leeyahay inuu isu soo sharaxo gaar ahaan hadaan nahay reer Hiiraan qof kasta oo muwaadin ah oo muxuu ahaayay oo reer Hirshabelle inuu xaq u leeyahay inuu soo sharaxo dhanba iskale reer Hirshabelle iskale hal reer iska malahan waxaan dhihi lahaa cadaaladda hana deeqdo waxaan dhihi lahaa dastuurka ha loo wada hogaansanaado gobolkaas Hirshabelle howlka suuhaya reer Hirshabelle isku duubnaado wada shaqeeyo insha Allah taala yaan la kala sadbursanin yaan lees dhaliilin nin kasto Hirshabelle oo doorasho diyaar oo shacabkiisa jecel yahay Hirshabelle wuxuu qabanaa waa soo dhaweynaynaa hal isku kalsoonaada Hirshabelle wax loogu daray meel hore ha u socdaan dastuurka ha waafaqsanaa sharciga insha Allah taala kala doorto dhan sida la sheegay madaxweynaha hadii la dooranayo madaxweyne ku xigeen hadii la dooranayo gudoomiye baarlamaan hadii la dooranayo ku xigeenna hadii la dooranayo dhammaan xilalkaas waa sida dastuurka uu qeexayo waxaa la rabaa cid walba inay iimaanka isgeliso dastuurkaas ku kalsoonaato tartankeeda ku kalsoonaato aan la sameeynin qalalaaso iyo wax qodobka labaad oo raba inaan ka hadlo muhiimadda waxay tahay xilligii waa gabagabo guddiga la magacaabay guddigaas waxaa loo igmaday inuu farsamadii iyo doorashadii xilliga dhici lahayd jadwal buu soo saaray annaga oo ka duulayno ilaalinta nidaamka una xilsaaran deegaanadaas matalno inay ku dhacdo xilligeedii ayaan isla garanay si looga badbaado xaalado badan. gabagabada kulanka ayaa laga soo saaray warmurtiyeedkaas oo ay ku mideysan yihiin go'aankiisa xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada maamulka Hirshabelle. in dawlad goboleedka Hirshabelle in doorashada dawlad goboleedka Hirshabelle waqtigeeda ku dhacdo sida ku mudaysan dastuurka dawlad goboleedka Hirshabelle. labo in aan taageersanahay guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee dawlad goboleedka Hirshabelle ee uu magacaabay madaxweynaha Hirshabelle taariikhdu markay ahayd 29kii bishii 9aad 2020. saddex waxaan soo dhaweynaynaa jadwalka doorashada ee ay soo saareen guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabelle kuna taariikhaysan 6 bisha 10aad 2020. afar si loo ilaaliyo xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadiniinta waxaa xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka u tartami kara muwaadin kasta oo ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle sida ku cad qodobada 46aad iyo 47aad dastuurka dawlad goboleedka Hirshabelle. Cabdinaasir Socdaal raadiyaha iyo telefishinka Dalsan magaalada Muqdisho. shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya. hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo. ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso. lacagtiina way dirsantay.
bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE